awaaga waxaan rabnaa xaggan inaan uga hadalno waxaa loo yaqaano haddii aad u baahato inaad AliExpress aad wax ku iibiso nafsad ahaantaada inta wax ka soo iibinaysid waxaa jira wadamo qaarkood loo ogol yahay iyo wadamo aan loo ogolayn. Okay, so inta badan dadka waxay ku sameeyaan AliExpress naftiisa dropshipping lagu sameeyaa koorsooyinkaas iyagana dib aan usoo qaadan doonaa annaga ay tusin doona sida AliExpress dropshipping loogu sameeyo. Waagaag marka ugu horeysa waxaa ku qoraysaa xagga kan waxaa ku qoraysaa waxaa loo yaqaano AliExpress seller account Google ku qoraysaa page kugu horeeyo oo Chinese ku qoran yahay ayaad kuwaan iska ilaali waa another affiliate way AliExpress ku dhufanaysa markaa ku dhufato waxaa kuu soo bixi page-kan asiga page-kan wuxuu kuu soo bixi waxaa arkaysaa wana video dawada baahan tahay wax badan ka ogaato videogan ayaad xagga ka dhufanaysaa ayaad si fiican u eegaysaa markaad ku dhufato يعني wax hoos oo ka jira malaha waxa eegaysaa waxa ku dhufanaysaa join AliExpress marka xaga ku dhufato markaan ku dhufato join AliExpress wuxuu na keenayaa halka aad u baahan tahay inaad ka soo gasho automatically numberka ugu horeeya create account iyo business information iyo application review waxay noqonaysaa applicationka marka iibinaysa in la iibiyo dadka iibin karaan rabna markii aan ogaano wadamada laga iibin karo registration country wadamada AliExpress global seller ka qayb gali kara kaliya xaggan lagu xusaayo markaan arrowgan ku dhufano waxaan arkaynaa main China qof jooga Spain qof jooga Italy qof jooga iyo Turkey qof jooga iyo Brazil iyo South Korea kaliya shantan lixdan wadan kaliya loo ogol yahay in AliExpress wax ku iibiyaan so dadka Spain jooga iyo Italy fursad fiican bay haystaan in dadka Turkiga jooga Soomaali badan baa Turkiga joogta I believe in after fursadan ka faa'iideysan kartaan okay Turkey askar discrepancy China ka soo dropshipping ka soo sameynaysa is easy iyo dadka mainly China jooga ayagana way ka faa'iideysan karaan fursadan iyada ah okay so registrationkii aad bilaabaysaa waxa meesha aad joogto sheeganaysaa hadaa China joogto China aad ku qoraysaa the workstation of AliExpress in China has been upgraded please click here hadaad u baahan tahay China lagu leeyahay xaggan upgrade garee Turkey aan leenahay so Turkey hadaad joogto waa buuxinaysaa xagga ka buuxinaysaa macluumaadkiisa kidikaas xagga Turkey aad alaabta ka dhow ka soo sameynaysaa adoo isticmaalaya waxa loo yaqaano software-radii aan videoda hore ku soo aragnay oo ahaa kuwii kuu sameynaya affiliation kuwii kuu sameynaya interrogationka oo kaa dhigaya inaad joogtid US ama China iyo meel la halmaala waagaag maadaama annaga aan qualify u ahayn laakiin qofkii u baahan processka inuu mar waa inuu qofka business bena samaystaa dadka Turkey jooga way yaqaanaan application review marka la dhaho sidaas ayaa lagugu registration markaas kadib waxaa noqonaysaa seller dad kuwaan ka mid ah oo meelaha jooga so waxaad u baahan tahay haddii dadka hadda fiiri dadka dhahay Mareykan aan joognaa qaarkood iyo Turkey aan joognaa dad dhahay dad waxaa jira hadda dropshipping sameeya xagga kan haddaan dad tusaale idinkaga soo qaadano let's see trade miller ma jeclayn inaan gudaha u galno dad waxaa jira ku dhahay waxaan joognaa USA iyo dad ku dhahay waxaan joognaa meesha loo yaqaano sida ninkan oo kale I believe they 153 they will tell you they in USA but they will do in a dropshipping you see ninkan muujada wuxuu ku leeyahay US baan joogaa laakiin alaabtan iyada anaga wino meesha laga helo so AliExpress uu kaaga dhex iibinaya he thinks in AliExpress ay cheaper tahay laakiin it's not cheaper so koorsadan iyo koorsooyin kale oo la halmaala waxaan isku daynaa inaan sharaxadeedan aan kor hore u sii wadno laakiin seller account dadka meelahan jooga kaliya iibin kara waa Turkey China Spain Italy Brazil iyo South Korea wagaag waa saddex wadani koorsiga